يا غافر الذنب العظيم يا فارج الكرب العميم يا خالقي أنت الرحيم ارحم بفضلك ذلتي. في كل آن نعمات لك في العباد ومنات وبكل شيء آيات دلت عليك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. إن شاء الله maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay laysa lilnisaa'i wasdu dariiqi. dumarka uma sugnaanin inay dhex socdaan wadada. waxaan filaa in ay kula tahay layaab maadaama lagu dhahay wadada ha soconin. ma ahan micneheed in lagu diiday bixitaan iyo socod oo dhan, laakiin waxaa loola jeedaa waa soconaysaa laakiin waxaad maraysaa wadada dhinacyadeeda. xabiibaati ma taqaaniin sababta loo diiday in aad wadada dhexdiisa aan marno? waxay tahay masalan hadda iskuulaadka oo kaleet ka soo qabo markii ardayda la fasaxo waxaa isku dhex jiro rag iyo dumar, intaba way isku dhex dirsan yihiin, wax ajnabi kale ay xataa uma malaynaysid. labo, suuqa oo kaleeto waxaa isku dhex jira rag iyo dumar sida dad aan ajnabi kale ahayn oo kale. xitaa gaarigii xitaa waa sidaas, nin baa dhinacaaga soo fadhiisanayo, nin kale baa dhinaca. waxaa laga yaabaa adig maanta inaad dhexda ku jirtid oo labada dhinac ay ajnabi kaa fadhiyaan. marka xabiibaata arrintaas baa idinkaga digayaayo iska ilaaliya, maxaa yeelay rasuulka naxariisiina geliyo korkiisa ha ahaadee xadiidku inuugu caddeeyey. xadiidkaasi oo noo warinayo أبي أسيد الأنساري عن أبيه رضي الله عنهما. أبي أسيد وحو إنه ورنيا أبيه سبيل أبيس أو كورنيا وحو أبي أسيد أبيس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. وحو دا وحان مقلي rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo dhahayo weliba rasuulka asagoo ka soo baxay masaajidka buu wuxuu arkay rag iyo dumar isku dhex jira wadada dhexdeeda. markaas buu rasuulku wuxuu yidhi naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee dumarkuuyuu ku yidhi istaqarna fainahu laysa lakunna an taxquqna dariiqa calaykuna bixaafaati dariiqi. wuxuu dumarka ku yidhi rasuulka naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee war dumaroo idinma sugnaanin wadada inaad dhex ahaataan mise wadada inaad dhex socotaan, ee waxaad laasintaan wadada dhinacyadeeda. macnaha waxaa lala jeedaa ragga ha dhex marinoo wadada dhinacyadeeda mara. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من سوقها به. rasuulka naxariisi nabadgelyo korkiisa ahaatee markuu yidhi dumarkii war ragga dhexda wadada dhex bartameeda ha marino dhinacyadeeda mara, maxay noqdeen dumarkii waxay noqdeen kuwa ku dhega markay soconayaan derbiga, xitaa dharkooda uu ka xariiqmo derbiga uu ka xariiqmo dhegidii ay ku dhegayeen derbiga. xabiibaati marka waxaa nagala rabaa in aan wadada dhex bartamiisa aan ahaaninoo dhinacyada aan marno. sidaas ayaa noo wanaagsan, sidaas ayaana ku liibaanayna. aan ku daysano dumarkii hore. naftay iyo naftiinan waxaan u dardaarmi lahaa wixii nala faray in aan qaadano, wixii nagala reebanay in aan ka harno. mawduuceena intaas baan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum. تناسل الجنان لك كل حمد في الورى عد الرمال وأكثارا ما لاح بدر أو سارا دوما على مر الزمان.